waxa uu leeyahay meel uu ka bilaabo iyo meel uu maxaan ku leeyahay dunida kala jaan qaado waayo 18 sano asagoo jiro ayaa waxa lagu dhahay anaga kumaana dhalin oo ku soo korinay oo kaliya hooyo aaba kala leedahay family kala leedahay si aad gabdhaheena maxaan ku dhahay ajaanibad ka tahay gabdhaheena ha ka xijaabtaan qol gooniya deg maxaan ku dhahay 18 sano ka bacdi hooyadii aabihii ku soo korsaday ilaa iyo 18 sano ka gaaraysa ilaa maalinta soo dhaltay ku soo haystay aad ka aaminsaneen inay hooyada iyo aabaha yihiin haday ku dhahaan marka 18 sano gaartid maanaan ku dhalin ayba ku soo korsanay oo kaliya waa arin madaxa aan gali karin oo xanuun badan uu yaaban yahay ilaa haddana wuxuu leeyahay meeshii wax ka bilaabi lahaa ama dunida soo la jaan qaadi lahaa ama wuxuu leeyahay si uu maskaxdiisa u dajiyo waayo waa caruur wali ma uusa gaaran 20 ay ku jiraa haddana waxaa lagu dhahay anaga kumaana dhalin sidaas darteeda gabdhaheena waa inaad ay ka xijaabtaan kas walaalahaaga ma aha waad geedaa waad guursan kartaa marka waa inay gabdhaheena ka xijaabtaan waa inay qol gooniya degtid guriga markaa soo gargaraacaysa nin ajaaniba tahay waa inaa soo gargaraacdid si gabdhuhu ay xijaab u sii qaataan waa uu yaabay gabdhihii uu la soo koray uu la soo barbaaray oo maxaan ku dhahay u haystay walaalihiis asaga la dhashay inay yihiin markii lagu dhahay ha ka xijaabtaan guriga soo gargaraac qol gooniyana ha ka degaan markii la dhahay waa uu la yaabay maskaxdiisana way qaadan laadahay maxaad kula talin lahayd maxaad si tala ahood siin lahayd committee ku soo qor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa in salaam asxaabtayda qaaliga soo dhawaada meelooga joogtiinbo وأنا كذا مهد علنا يا لجوجستين أصحاب تعصب حالي سود وهذا كل يكون جرمد حنو سارتي أصحاب ورا يرجوكتر وحالي هاي نلسي جوج إن بدان آدي إنكم مهد علنا يا مرنا كمد على دون مهد علمتينا إنا مهد عليو إنا محاكو رايتو مهد سنتين لجنبها مهد كود إلهي سبحانه وتعالى إسكالة الله بعدنا أصحابتي بقالي إسكالة وإن السلام يا ميلو الوجوكتين وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قاليجا ما أنت قصار بينا إذن لو ذا وقصص أذي على شيء يقول السي والله يعني على شيء أذي يقول السي أذيك أنا إنك كهورين دونت عن ملاينا يا ورجينا إنك كهورين دونت واي ويحنون بدنت هاي ويل أيام حاكو هاي تفهمي كيشي صاكر صدي أو سجاد التمنسنا أورنا ولا أيام حيد هين أنا هاي يا أبو وكون هاي قبل أنا كنا بس كما أنا دلين قرابة نكون هاي sidan ay qisada ku bilaabanaysaa hooyo aaba ayaa kala tagay hooyo aaba ayaa isfuray markay isfureen cunug yara dhexdooda yaalay oo ay dhaleen ilaahay ku risaaqay cunug ilaahay ku risaaqay roob da'ayo hadina wax maqlayni ka raali ahaada ilaahay risqiisa da'ayo ma sha Allah tabarakallah mandarka ilaaha hooraayo roob da'ayo shaqanta maqlaysin roob waaye ma sha Allah tabarakallah أصحاب القالية مركز قصدنا سي ودنينا إن ويل كان وحوق هاي هويدي سأبيس أكلت تجين الصغير وآد وير أي كلت تجين هويدي سأبيس مركز كلت تجين أبي ويسكت تجين ودنا يصير هويدي أنا ما دي كرو وي تورتر ما دي كرو ولا قاتي ما دي كرو كل هويدي نوي تكتي أبي نقول تطلب دي وارد بوي كلا دنا يستاهل هويدي نفهم كل إسكاي يلتي أبي نفهم كل إسكاي شو ويل كير كها وآد ويرا ayaa waxa la soo wareegay eedadiis aabiis la dhalatay la soo wareegtay eedadiisa oo la gashay eedadiisa soo korisay eedadiisa wiilkii muddo haysatay maxaan ku dhahay wadanka Soomaaliya laga soo tagay wadan qurba ah la tagay wiilkii waxbarasho la geeyay dugsi sare ka baxay high school u dhameeyay ma 18 sano markaan soo gaaray waa uu weynaaday eedadaanaytu waxay leedahay caruur iyo reer iyo nin ay leedahay wiilka soo korsatay waxaana dhalay wiilkan walaalkeed ayada la dhashaa dhalay oo eedo runahay oo aabiis la dhalatay asxaabteeda qaaliga wiilkii sidoo uu ahaa waligiis wiilka lama dareensiin in eedo loo yahay iyo in qaraabo loo yahay midna lama dareensiin maamadan eedadiis oo aabiis la dhalatay wuxuu u haystaa hooyadiis macaan oo haysta oo asaga dhashay balse maana dhalina way eedadiis aabiis la dhalatay oo dhib la'aan ay dhashay wiilkii markuu teen ay soo gaaray asagoo high school dhameeyay quraanka dhameeyay high school dhameeyay ma sha Allah cunug akhlaaq loo tarbiyo wanaagsan lagu soo koriyay ayaa maalmaha ka mid ah maadaama ilmihi ay waaweynaadeen oo ilmihi eedadu ay dhashan ay soo waaweynaadeen oo soo qayn gaareen wiilkina uu qayn gaaray asna oo 18 sano uu gaaray muuse wadaadkii qabay eedada ayaa wuxuu dhahay islaantiisii u yeeray wuxuu ku dhahay heblaayo miyaha walaal waxaan u baahanahay inaan wax ku sheego أن أرنك له وذاك هاي دهذي وحود ده ولا لي وحاء أباهنا هاي إن ويل كان أنا كنا صوفر صدون أبيه سلب الآن أنا هاي أدينا أدهوي سلب الآن هاي إن محاك هاي تمانت أشير ما دام أوقين جاره وين هذي
inaan u sheegno aan niraahno anaga kumaanaa dhalin dhib la-aan aan ku dhalnay eedi iyo adeer aan ku nahay laakiin hooyo iyo aabba kale ayaa leedahay inaan dhahno maamadu way isku dhaxday waxay dhahay suu u qaabilayaa suu u fahmi karaa waxaas seebu maskaxdiisa ay u geli kartaa wuxuu dhahay daruuri waaye because waxay daruuri ku tagoo dhahay oo ay daruuri ku noqonaysaa in wuxuu dhahay gabdha ii jooguu dhahay oo gabdhaan dhalay uu dhahay gabdhaha aan dhalay iyo wiilka eedada ah u tahay ajaanibay kala yihiin way kala xijaaban karaan wayna isgayaan uu dhahay oo way kala xijaabanayaan maadaama hadda si walaaltinimo la isugu dhex jiro oo gabdhihii wiilka aysan ka xijaabanaynin oo ilmo isla dhashay camal ay yihiin oo la kala xijaabanaynin diinteenana ay farayso in la kala xijaabanayo oo la isgeeyo sidaas darteed waxaan rabaa inaan wiilkan maanta ugu qayngaareen wax walba aan u sheegno runtana aan u sheegno kolay waa qof quraan bartay oo diin barto oo iimaan leh wuu qaabili doonaa arrintan hooyadii arrintii eedadii in badan bay ka warwareegtay way la adkaatay waxay tiri ma u sheegi kari waa ka cabsanayaa wuu iga niyad jabayaa wuu iga xumaanayaa laakiin arrintii daruuri ay noqotay wiilkii in loo sheego oo arrin aad daruuri u ahay noqotay arrintii maxaan ku dhahay wiilkii eedadii way u yeertay maalin maalmaha ka mida magaaladay geysay meel maxaan ku dhahay iska baashaalahay geysay waa meesha la fariistay kafee lagu dalbaday waa la fariistay waxay dhahday hooyo waxaan rabaa inaan arrin kula wadaago oon kuu sheego asagu yaaban yahay because waxaas marna kumay samaynin waa ilmo yar waa dareen ka dhacunuga adiga guriga kuu joogo kale ka soo qaad wuxuu dhahay hooyo maanta maxaa jirda weligaa meesha ima keenin weligaa maxaan ku dhahay waxbaa kuu sheegaya iyo waxbaa saana ima dhihinin marka maxaa jiru dhaha hooyo maanteeto waaba farxadaa sugayaa huu dhahay hooyo prank ma igu samaynaysaa iska faahfaahsan ilmaha hadda jooga pranki dadka pranki isku sameeyaan badanaaba waxay dhahday hooyo waxaan rabaa inaan arrin kula wadaago oo arrintaasi tan waan oga inaa ka naxayso oo aysan ku farxad gelinaynin haddana waxay dhahay daruuri ay noqotay inaan kuu sheego oo inaan kuu sheego on kula wadaaga daruuri ay noqotay laakiin kuma farxad gelinaysay dhahday iga raalli ahow 14 boqolka iga raalli ahow bay dhahday laakiin inaan arrinta kuu sheega daruuri ay noqotay dhahday waxay dhahday maamadii sidaasaa jirto aniga maxaan ku dhahay dhib la-aan aan ku dhalay eedada aabbaha la dhalataan ahay adoo yar oo 2 bilood joogo ay hooyadaada ii dhiibtay sidii aan kuusoo korsaday 2 bilood maalintaa jirtay ilaa iyo 18 sano maanta high school aa dhamaysay anaa kusoo haystay anaa hooyo kuu ahaa anaa maxaan ku dhahay aan weliga xumaato aan ku tusin oo inaa xumaato dareento oo in cida aan ku dhalin aala joogto aad dareento diyaar umaana ahayn laakiin maanta daruuri ay noqotay daruuriga ay noqotana waxay tahay sidaan maadaama gabdhahan kula dhashtay oo walaalahaaga aniga aan dhalay aad ajaanib kala tihiin aad kala xijaaban kartaan diintuna ay farayso inaa kala xijaabatiin adeer ina maxaan ku dhahay oo arrintaas iisoo bandhigay inaan kula wadaagaa go-aansaday marka hooyo ha iga xumaanin hooyadaada way joogtaa lambarkeeda waa haayaa aabahaaga wuu joogaa lambarkiisa waa haayaa waxaan u baahanahay anigana maxaan ku dhahay inaan hooyadaabaan awalba ahaa haddana waa sii ahaan doona haddana waa ahay laakiin ogow inay 2 waarid oo kale ay ku dhaleen aniguna aan kusoo korsaday dhib la-aan labadaanan waaridna ay waarid ku yihiin dhib la-aan labadii ku dhasho xaqa ahayd oo runta ahaydna ay jiraan oo ay nool yihiin wiilkii wuxuu dhahay hooyo prank ma igu samaynaysaa ma igu ciyaaraysaa see wuxuu jiraan uu dhahay see waxaas iiga dhaadhicin kartaa wuxuu dhahay waxaas hooyo wax jira ma ahan wax soconaayo ma ahan anigu waxaan ku dhahay hooyo adi ahayd ma aqaano mana lihi arrintaana waxaan u arkaa arrin qaldan oo prankia inay tahay hooyo waa igu ciyaaraysaa idaayuu dhahay adi meeshii cunugii waa hadalkii waa geli waaye waa qaadan waayey nag way gelisii weyda maamada wiilkii hadalkii way iska baxeen guriga iska aadeen waayahay dhahday guriga iska aadeen guriga markay aadeen waxay u yeertay wadaadkeedii u yeertay because wadaadkeedii wuxuu ka sugaayay jawaabu ka sugaayay way u yeertay waxay dhahday wiilkii arrinta waa u sheegay waan la wadaagay wax walba say ahaayeen oo la wadaagay balse wuu iga qaabili waayay dhahday oo waa qaabili waayay dhahday oo arrintaas maskaxdiisa way geli weyd ilaa hadda wuxuu ku haya hooyo pranka ay ugu samaynaysaa ku hayaa maxaan ku balkaale adiguna arrintan soo gal oo wiilkan u sheegay dhahday sidaan arrinta saxda u sheegay dhahday bas wadaadku wuu imaaday wadaad xun ma ahayn cunuga si fiican u soo korshay weligiis xumaato ma tusin sida uu cunuga uu sheegayo xumaato ma tusinin laakiin arrintaana waxay noqotay arrin madaxa ka weynaatay noqotay oo cunuga maskaxdiisa ka weynaatay noqotay bas wadaadku wuu imaaday wuxuu dhahay aabo ma fiicanta haa haye xaaladaada ka waran waa fiicanahay
abo hooyo arrin ma kuu sheegtay hayo dhan hooyo arrin ma ii sheegtay laakiin aaba ilaa hadda hooyo prank igu sameynaysaa uu dhahay wixii hooyo ii sheegtay wax saxan ma ahan uu dhahay prank igu sameynay marka wuxuu dhahay maamadii hadda prank bilowday uu dhahay cunugii iyo waxyaabo noocaas aabiya wuxuu dhahay aabo arrinta prank ma ahan ani dhib la'aan ku dhalay in eedadaadana dhib la'aan ay ku dhashay waa eedada aabaha la dhalatay ayadii aabaha laba walaalaa waaye laba qof oo isku xigto labadooda isku xigtay waaye balse intaasay marka aan ka qarinayna family-gaaga ama aan ku inaan ku sheegna aan diidayna inaan hooyo kala qabto ama aaba kala qabto aan diidayna inaan caqdad qaadid inaan xumaati isbiirsi inaan isla family-ka kuma dhalin family ku dhalin Allah noo shahay intaas anagu qalbigaaga ilaalinayna aan intaas ku soo gaarsiino saas ku soo gaarsiinay maanta daruuri ay noqotay waayo waad qayn gaartay qofkuna markuu qayn gaaro wax walba oo xaq ah inuu la faro loo sheego xaq uu leeyahay uu qaato hooyada xariiray ka rabtaa waad qayn gaartay aaba xariiru ka rabaa waad qayn gaartay anigana waxaan ka rabaa gabdhahan aad la nooshay oo walaalahaaga ajaaniba kala diin inaad kala xishootiin oo iskala asturtiin oo maxaan ku dhahay ay ka xijaabtaan sida inaa marka guriga ka maqanto kala soo gargaraac si gabdhaha xijaab kaaga saartaan maadaama aad isgeeydiin sida maxaan ku dhahay inaa guriga markii la wada joogo xataa ay gabdhaha ka xijaabtaan sida maxaan ku dhahay in aad qol gooniya degto aad guryaha aad qol gooniya hadda waa degantahay aad qolkaaga ay gabdhaha iyo adinku inaa soo wada galgelin oo ayna maxaan ku dhahay adoo hala kala xijaabto sida diintuna fartay hala kala xijaabto le bas odayga hadalkiisa wuxuu ku soo ekeeyay hala kala xijaabto waalidkaagana xariiri aniga waa ku dhalay dhib la'aan aan ku dhalay wiilkaygii waa tahay maanta kalsooniyaad ugu qabtaa ana kalsooniyaan kugu qabaa balse ogow aaba kale iyo hooyo kale run oo sax inaad leedahay wiilkaasay arrintaas way la weynaatay maskaxdiisayna ka weyn tahay ilaa ay haddana wuu shoogsan yahay wuu yaaban yahay arrintaasna ilaa hadda wuxuu u haystaa prank inay tahay hooyadiis ma xariirin aabihiisna ma uusan xariirin ilaa haddana wuu yaaban yahay ilaa hadda eedadiis oo soo korsato aabihiis la dhalatay oo soo korsatay waxay ku jirtaa sidii maskaxdiisa ay ku dejin lahayd isdeji ay ku jirtaa isdeji waxaan wax caadiya waaye ilmaha Soomaalida badanaa way ku dhacdaa ilmo badan bay ku soo dhacday waa wax caadi ah waa wax dhaco marka asxaabteeda qaaliga sheekadaas maanta idin la soo wadaagay wiilkaas yarka maxaa kula tarin lahaydeen comment ku soo qora sheekadaas eegto hadaa sheekooyinkii qisooyinka cajiibka ah oo dhaca aad rabtina inay soo geliyo waa inay soo gelinaya wax channelka soo geliyo oo xiiseynaysiin soo sheega qaybta comment-ga nagula soo wadaaga waa in salaamaya asxaabteeda qaaliga mar labaad mar saddexaad madaxa ay saaran channelka subscribe saar haddaad nagu cusub tahay noo subscribe garee like tii share tii comment-ga waa noo muhiim asxaabteeda qaaliga waa in soo dhaweynaya mar labaad mar saddexaad waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada sharaf korkiina ha ahaato iyo karaamo burburka qoysaska keenayo burburka qoysaska waxaan ka baryaynaa inuu burburka qoysaska naga yareeyo oo burburka qoysaska uu naga yareeyo waayo in qoysaska burburaan baa keenaysa in ilmaha waxaasoo niyad-jab uu ku dhaco ama dhibka intaas le ilmaha uu ku dhaco burburka qoysaska keenayo wiilka yarkaana waxaan leenahay ilaahay qalbigaaga ha kuu dejiyo cunuga asagoo yar oo aad u yar haddii qalbigiisa la dhaawaco oo wax uusan filayn ay galaan oo maskaxdiis ka weyn ay galaan waxaan ku dhahay qalbi jab iyo waxay u keenayaan iyo niyad xumo ay u keenaan ilaahay qalbigiisa ha u qaboojiyaan leeyahay asagii familkiisana ilaahay ha isku miceeyaan leeyahay burburka qoysaskana ilaahay ha naga yareeyo hooyooyinka iyo aabooyinka kuwa isku samir yeesha ilaahay ha ka dhigaan leeyahay waa in salaamaya asxaabteeda qaaliga fiida mid lamid inta ku kulmi doono salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bye bye